في wanaagsan akhyaarta nala socoto meel kasta oo dunida ka joogtaan idilkiinba ku soo dhawaada mar kale iyo tabin ku saabsan taxliilinta wararka caalamka ee lafagurka diblomaasiyadda oo 10 May sanadka 2026 tabintan caawa qodobadaan idin kugu haya waxa kamid ah muddo dheer oo indhaha caalamku ay Tahraan ku sii jeedeen kadib markii laga sugayay inay ka jawaabto intisihii dawladda Mareykanka caawa ayay u gudbisay dawladda Pakistan xilli walaaca gobolka bariga dhexe uu kor u sii socdo haddaba maxay yihiin waxyaabaha dawladda Iiraan ay soo bandhigtay ku saabsan miiska wada xaajoodka in lagu gorfeeyo wada hadalka dawladda Mareykanka iyo Iiraanna ma noqonaya mid miro dhala marka la fiiriyo toddobaadyada soo socda kulamada la filayo inay dhacaan warbixin xasaasi ah oo arrimaha diblomaasiyadda dulmeeri doonta ayaan idin hayaa inta waxa raaci doona madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo caawa si la yaab la u godiyay wuxuu yiri waxaynu helaynaa xog xasaasi ah oo ku saabsan arrimaha nuclearka dawladda Iiraan haddii ay arrintan ku sii socoto lagama maarmi karayo tallaabo military in la qaado Trump ma qoostay oo ma dagaalayo isku diyaarinaya xilli maanta la dareemayo dawladda Iiraan inay ku jirtay diyaar garow dagaal warbaan arrinta idinka leeyahay dhinaca kale dawladda Shiinaha ma noqonaysa cid si rasmi ah u damaanad qaadi karaysa tallaabada rasmiga ah ee dabooli karaysa amniga wadamada khaliijka xilli la filayo baa la yiri in dalkaasi Mareykanka oo iminka galayo wada hadal aad u dheer oo dawladda Iiraan ku saabsan isla markaana laga yaabo inuu oortiisa ka rarto gobolka bariga dhexe madaxweynaha wadanka Iiraan Mas'uud Pezeshkian waxa uu leeyahay wada hadalka Mareykanka lala galaya macnaheedu maaha in la isdhiibayo qodobadaas iyo xogihii ugu dambeeyay gobolka bariga dhexe ayaan idin hayaa khiyaarta inala socotay janalka naga daawanaysaan waa Cabdilcasiis Barrow inagoo macluumaad kalena ku soo bandhignay goor dhow ka hor janalka Barrow Show aad qaybta hoose ka arki kartaan labada janalba subscribe saara kuna soo biira waa maasantiin dawladda Iiraan jawaab aad u kulul ayay ka bixisay hindisihii dawladda Mareykanka ay soo jeedisay ee loo gudbiyay wadankaasi jawaabtii laga dhowrayay ayaa caawa loo celiyay dawladda Pakistan wararku waxay tilmaamayaan in dawladda Iiraan ay ciyaarayso lucba adag oo siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo la xiriirta gobolkaasi bariga dhexe sida qubaradu ay aad indhaha ugu hayaan dawladda Iiraan ayaa si rasmi ah u gudbisay Pakistan jawaabteeda ku saabsan hindisihii ugu dambeeyay ee Mareykanka ee lagu soo bandhigay baa yiri in lagu soo afjaro dagaalka socda in dib loo bilaabo wada hadal xasaasi ah sida ay baahisay wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA qorshaha cusub ayaa diiradda saaray laba qodob oo waaweyn in marka hore la joojiyo colaadda militariga isla markaana la xaqiijiyo amniga maraakiibta ganacsiga iyo isu socodka badda ee khaliijka iyo waliba marinbiyoodka istiraatiijiga ah ee Persia ee Hormuz warbixintu waxa ay sheegtay in jawaabta Tahraan loo mariyo Pakistan oo dhaxdhaxaadinta laga dhaxwado labada dhinac ay tahay in aan wali la shaacin faahfaahin buuxda oo qodobada ay Iiraan soo gudbisay ama ay diidaba ku saabsan dhinaca kale warbaahinta gudaha dalka Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan ayaa sheegtay in hogaamiyaha sare ee wadankaasi Mujtaba Khamenei uu ciidamada qalabka sida siya awaamir culus oo lagu xoojinayo howlgalka military iyo adkeynta difaacyada qaranka iyo waliba wada xaajoodyadu ay soconayaan xiisada gobolka ayaa aad u sareysa inkastoo saacadihii ugu dambeeyay la dareemay deganaanshiyo xadidan oo ka jira baa yiri marinbiyoodkaasi istiraatiijiga kadib weeraro iyo iska horimaadyo soo noqnoqday maalmihii la soo dhaafay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu filayo in Washington ay si dhow u heshay jawaab kama dambaysa oo sare oo Tahraan isagoo xusay in Iiraan ay wali muujinayso rabitaan ku saabsan wada hadallada dhinaca kale ila wareedyo ayaa sheegaya in nidaamka gacan ku samayska ee Tel Aviv waa Israa'iil uu ku dhow yahay baa yiri in uu la socdo wada xaajoodyada ayna wali taagan tahay muranka ku saabsan arrimaha uraniumka la kobciyay oo si weyn indhaha loogu hayo
isla uraniumkaasi iyo waliba nuclearka wadanka Iran ayaan daba socdaaye madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu yiri arinta uraniumka dawladda Iran si weyn ayaan indhaha ugu haynaa waxna suuragal ah tallaabooyin military inay dhacaan haddii aan qatar weyn sii dareeno. Trump ayaa laba bogleyn ka muuqanaysa xilli wada hadalka iyo wada xaajoodka la tilmaamayo in dawladda Iran ay ku gacan sareysa miisaska wada hadalku ay ka dhacayaan. hogaamiyaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in madaxweynaha Mareykanku ugu dambeyn gaari doono baalidi oo si buuxda ula socon doono uraniumka Iran oo la sheegay in uu ku aasan yahay meelaha burburka hoostooda isagoo xuseen ciidamada cirka iyo hawada Mareykanku ay arintan gacanta ku hayaan oo ay faylkaasi daba socdaan. Trump ayaa sheegay in haddii cid kasta ay isku daydo in ay ku dhawaato buu yiri ama ay u dhaqaaqday uraniumkaasi Mareykanku uu ogaan doono isla markaana bartilmaameed uu ka dhigan doono halkaasi oo satellite-yada Mareykanka iyo waliba kooxaha xogta soo aruuriya ay si weyn indhaha ugu hayaan. Iran waxa uu yiri dagaal ahaan waa laga adkaaday inkastoo laga yaabo in ay si buuxda u qirsanayn ayuu hadalkiisa ku daray Trump isagoo sii hadlayay. waxa uu sidoo kale ku celiyay mowqifka Washington ee ah in aan marnaba la ogolaan doonin in Iran ay hesho hubka nuclearka isagoo ku antacooday in Tehran oo hubkaasi hesha macnaheedu uu yahay dunida oo qatar weyn galaysa sidaas darteedna Mareykanku uu yahay booliska ilaalinaya. Trump ayaa sheegay in ciidamada Mareykanku ay burburiyeen 3 xeer oo muhiim ah oo ku tiirsanaa buu yiri hoggaanka Iran inkasta uu qiray in Tehran wali ay leedahay awood iyo karti ay ku sii wadi karto shaqadeeda isla markaana ay u jilib dhigi karto iska caabinta Mareykanka. sida uu sheegay haddii Mareykanku maanta uu ka baxo dagaalka waxay Iran ku qaadan kartaa buu yiri ilaa 20 sanadood inay dib u dhisto awoodeeda militariga iyo kaabayaasheeda burburay waa sida uu adagu ku tiraabay. Trump waxa uu intaasi ku daray in ciidamada Mareykanku ay wali haystaan bartilmaameedyo dheeraada guud ahaan dalka Iran ayna suuragal tahay buu yiri in weerar cusub lagu qaadi karayo 2 toddobaad ee soo socda haddii xaalku sidan sii ahaado. waxaan u maleynaynaa inaan gaarnay ku dhawaad 70% ujeedooyinkii military ee Iran balse wali waxaa jira yoolal kale oo muhiim ah ayuu hadalkiisa ku daray. inkastoo uu qiray in Iran ay si buuxda loo baabi'in Trump haddana waxa uu sheegay in xitaa haddii aan la weerarin dhammaan bartilmaameedyada harsan Tehran ay sanado badan dib u soo kaban doonto marka la eego dhibaatooyinka soo gaaray. iyadoo madaxweynaha dalka Mareykanka uu wali doobinayo kana muuqanayso in uu si weyn u aaminsan yahay dagaal lala gala dawladda Iran haddana madaxweynaha dhigiisa ah ee wadankaasi Mas'uud Pezeshkian ayaa ku dhawaaqay taasi macnaheedu ma aha buu yiri dawladda Iran inay isdhiibi karayso oo waxaan diyaar u nahay jawaab inaan ka bixino hadallada kulul ee ka soo baxaya madaxweynaha Mareykanka. madaxweynaha dalka Iran Mas'uud Pezeshkian ayaa sheegay in ka hadalka iyo waliba wada hadalka iyo wada xaajoodyada lagu soo afjarayo dagaal aanu ka dhignayn isdhiibid wada hadalka lagu soo afjarayo dagaalku aanu ka dhignayn isdhiibid ama dib u garasho balse uu yahay buu yiri dadaal lagu ilaalinayo xuquuqda shacabka iyo danaha qaranka ee wadanka Iran. Pezeshkian ayaa hadalkan sheegay axadii maanta ahayd kulan uu la lahaa magaalada Tehran mas'uuliyiin iyo waliba xilal sare ka haya dagaalka iyo waliba ka jawaabista qasaarihii ka dhashay dagaalka u dhaxeeya Mareykanka, Israa'iil oo isku olaga iyo dawladda Iran oo dhinac kala taagan. sida ay warisay wakaaladda wararka ee dawladda Iran ee IRNA madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay dawladdu siinayso magdhowga iyo taageerada dadka ay saameeyeen weerarada gaar ahaan qoysaska guryahooda ay waxyeelada baani ka soo gaareen duqeymaha. ka hadalka wada xaajoodka iyo xalalka diblomaasiyadda macnaheedu ma aha in aan isdhiibayno ama aan ka tanaasuleyno mowqifyadeena qaran balse waxaa lagu soo afjarayaa ama lagu ilaalinayaa buu yiri difaaca xuquuqda shacabka iyo maslaxada qarankaasi ayuu Pezeshkian hadalkan ku daray. waxa uu sidoo kale sheegay in shacabka Iran aysan waligood isdhiibi doonin waxa uu ugu yeeray cadowgana aanay gacanta u gali doonin isagoo xuseen xukuumaddu ay sii wadi doonto iska caabinta qarankaasi dalka Mareykanka iyo waliba
adyadka ka imaanaya nidaamka gacan ku samayska hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo xabad joojintu ay wali siitan tahay dhinacyaduna ay iswadaarsanayaan hadal aad u kulul marka la fiiriyo mowqifyada labada dhinac xilli Trump uu wali aaminsan yahay inaanu goolo dhammaystiran ka gaarin dagaalka gobolka bariga dhexe haddana khubarada wadanka Shiinuhu waxay damaanad u siinayaan wadamada khaliijka oo waxay leeyihiin Trump waa difaaci waayay oo cidda arrintaasi aad ka heli karaysaan waa dhinaca Beijing ma du gacan haatisaan sidaas waxaa lagu sheegay warqad cilmi baaris oo goor dhaweyd lagu baahiyay telefishinka Al Jazeera qabiirka ku takhasusay diblomaasiyadda iyo maamulka Shiinaha Dr. Wang Bing ayaa sheegay in Shiinaha uu isi soo taraysa sida ay ugu muuqato bariga dhexe inuu yahay lamaanaha loogu kalsooni badan yahay xilli gobolka uu wajahayo khasaare amni iyo siyaasadeed ee sii kordhaya maqaal uu daabacay maanta doctorkaasi waxa uu ku sheegay in colaadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran iyo waliba Israel ay keentay xaaladda bini'aadanimo ee qasaynay ka sii darto xiisadaha Lubnaan ay cirka isku shareeraan khasaaraha marinbiyoodka muhiimka ah ay abuureen jawi cusub oo amni oo saameyntiisa aan hore loo sii qiyaasi karin sida uu sheegay qoraagu saameynta Shiinaha ee gobolka hadda kuma koobna ganacsiga iyo maalgashiga oo kaliya waxay sidoo kale gaartay booyeen dhinacyada tamarta isku xirnaanta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhaxdhaxaadinta diblomaasiyadda warbixintu waxay tilmaamaysaa in dalal badan oo khaliijka ay sii kordhayaan xiriirka ay la leeyihiin Beijing sababo la xiriira isbeddelka siyaasadda ee Mareykanka oo ay ku bixiyeen baaliri ay ku jiraan bixitaankii Afghanistan 2021 diiradda Washington ee tartanka quwadaha waaweyn iyo mugdiga ku saabsan sida Mareykanka uga jawaabi karayo khilaafaadka gobolka Shiinaha ayaa lagu tilmaamay inuu leeyahay siyaasad deganaana oo ku dhisan afar mabda oo ku salaysan baaliri ixtiraamida madaxbanaanida dalalka dunida faragelin la'aanta caalamka diidmada cadaadiska halka dhinaca iyo taageerada wada hadalka siyaasadeed taas oo ka imaanaysa bay leeyihiin mabaadi'da dawladda Mareykanka waa sida Shiinaha aqoonyahankiisu ay iibinayaan qabiirkan ayaa xusay in dhaxdhaxaadayaasha Shiinuhu ee heshiiska dib u soo celinta heshiisyada Sacuudiga iyo Iran sanadkii 2023 ay tusaale u tahay awoodda Beijing ee dhimista xiisadda gobolka dhanka dhaqaalaha Shiinaha ayaa sii xoojiyay baaliri joogitaankiisa gobolka isagoo maalgelinaya dekado iyo warshado tamarta nadiifta ah isgaarsiinta iyo waliba mashaariic la xiriirta hindisaha wadooyinka loo yaqaano BRI oo ah Belt and Road Initiatives halka uu sidoo kale ka mid yahay iibsadayaasha ugu waaweyn ee shidaalka adduunka warbixintu waxay sidoo kale sheegaysaa in joogitaanka military ee xadidan ee Shiinuhu uu noqon karayo faa'iido maadaama Beijing aysan lahayn nidaam xulufo oo military ama saldhigyo waaweyn oo khaliijka ah taasi oo fududeynaysa in dalalka gobolku ay la shaqaysanayaan iyaga oo aan lumin xiriirkooda amni ee Mareykanka si kastaba ha ahaatee qoraagu waxa uu qiray in Shiinaha uu wali cadeyn buu yiri awoodda uu ku maareyn karo dagaalka weyn ee goboleed ama bixinta damaanad amni oo la mid ah tan Washington warbixintiisa ayuu ku ganaanuday Dr. Wang Bing waxa uu ku tilmaamay in dalalka bariga dhexe ay si toos ah uga leexanayaan Mareykanka balse ay raadinayaan buu yiri kala duwanaansho istiraatiiji ah oo iskaashi ka badan kan Mareykanka ku caawin karaya sidaas darteed Shiinaha ayaa isi soo taraya in uu hadda la wareegayo saameyntii gobolka bariga dhexe halka Trump uu saameyntii Mareykanka uu hoos u dhigay sida aqoonyahankaasi uu qoraalkiisa ku tilmaamay khiyaarta inala socota ay fiidnimadan caawa tabinta qaybtan ee taxliilinta wararka diblomaasiyadda siyaasadda gobolka bariga dhexe iyo militariga aynu ku faaleynayna qaybtan intaasi ay noo joogto hilmaamina inaad Barrow Show iyo Cabdilcasiis Barrow baad subscribe saartaan waa mahadsantiin